بسم الله الرحمن الرحيم. فيسوج iyo qaramada midoobe waxa ay suura galiyeen in kulankan muhiimka ah ee ku aadan maalinta xurriyadda saxaafadda in ay ka soo qayb galaan garsoorka booliiska oo ah gacanta qaanuunka aqoon-yahanada suxufiyiinta oo ah safka hore ee xurriyadda in ay la wadaagaan caalamka oo dhan doodan looga hortegayo qoqobka iyo go'doominta sida uu halku dhageenu yahay lagu sameynayo saxaafadda ma aha oo keliya sida uu macallin shariif sheegay dhibaatooyin muuqda in lagu sameeyo waxaa jira dhibaatooyin dadban oo ay ka mid yihiin in dowladaha qaar ay samaysteen software dabagal ku sameeya saxaafadda isla markaana basaasa suxufiyiinta carqaladeeyana howlahooda ujeedada loo keenay garsoorka Soomaaliya iyo booliiska waxa ay tahay in ay ka mid noqdaan dadka saxaafadda hawsheeda marka ay wataan xagga qaanuunka ka taakulayn kara waxaa marti noo ah doodi ayaan bilaabaynaa waxaa marti noo ah gudoomiye xilalaaliye ku-xigeenka qaybta xilaalaalinta Axmed Cabdullaahi Maxamuud ku mahadsan tahay inaad ka soo qayb gashay doodan xasaasiga ah ee taabanaysa suxufiyiinta Soomaaliyeed sidoo kale waxaa doodan jooga afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan Xasan isla markaana ah suxufi adna waa kugu soo dhaweynaynaa doodan waxaa doodan sidoo kale naga qayb galaya laba aqoon-yahan oo waaweyn oo taariikhda waxbarashada dalkan iyo u ololeynta xurriyadda qayb weyn ka qaatay Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo aad ku taqaaneen bulshada rayidka ah welinaya ah madaxda tusaaleynta iyo hagaajinta ururada bulshada Soomaaliyeed ka dhex muuqda si wadankan looga helo cadaalad dhinac walba taabata waxaa sidoo kale martida ka mid ah Cabdishakuur Sheekh Xasan Fiqi oo ah aqoon-yahano weyn oo aad ku og taqaanaan howlaha uu ka soo qabtay jaamacadaha waxaa sidoo kale joogta Nafisa Xirsi Ogle oo ah gabar u ololeysa ururka dumarka iyo isku xirka saxaafadda waxaa sidoo kale jooga nin suxufi ah oo muddo dheer ka soo shaqeynayay wadankan intuu burburku ku jiray saaxiibo badanna ku waayay xanuunka saxaafadda ay soo martana maalin walba warkeeda haya Awees Xaaji Nuur dooda waxaan ku bilaabaynaa Awees ayaan ku bilaabaynaa maadaama uu suxufi yahay madaxdiisa hore qaar kamida ay kamid ahaayeen tirkoobka uu soo gudbiyay ama aad ku aragteen sida Sharmaako oo kale Awees microphone ka qabso maxaad ku daraysaa bandhigii koobnaa
ee dhibaatada suxufiyiinta ay la kulmaan marka ay timaado Soomaaliya oo number 2 kaga jirta gabadh falka ka dhanka saxaafadda waa maasan tahay Ustaad Maxamed Cadde iyo maaragtay aqoon-yahanada kale ee macallimiinta noo ahaa afayeenka booliska iyo xeer ilaaliye ku-xigeenka iyo nafiso iyo martida kale ee halkan nala fadhisa dabcan waxaa nasiib darro weyn ah iyada oo maanta aan joogno sanadka 2022 maalintan oo ay ahayd inaan maaragtay ku maamusno aan ku xusno wixii horumar ah ee la gaaray ee dhanka saxaafadda iyo maaragtay xuriyatul qowlka inaan weli xuseyno oo aan maaragtay ku soo bandhigayno xogaha ku saabsan inta wariye ee dhimatay ee u dhimatay in ay dadkooda xog la wadaagaan inta wariye ee loo xiray ama siyaabooyin kale oo kala duwan loogu xadgudbay xuquuqdooda maaragtay nasiib darro waaye in sanadkan iyo sanadkii la soo dhaafay 2021 iyo 2022 in aan ugu horeyno adduunyadana xagga dhimashada saxafiyiinta dhimashada aan dhihina dilka inaan 21 saxafi in la dilo nasiib darro kale waaye maxaa yeelay Soomaaliya waqtiga ay ugu adkayd ee ay ugu xumayd xagga nabadgelyada iyo duruufaha maaragtay haddii dib loo laabto tusaale ahaan la dhaho 92 iyo 3 iyo 4 intaasoo wariyaha kama dhiman waxaasoo dhan waxaa sees u ah oo maaragtay asal u ah iyada oo dalka oo dhan duruufo amni ay ka jiraan oo nabadgelyo xumo ay jirto oo dadka shacabka ah ay waxaan la qabaan oo aan xirfadan ku jirinna ay dhibaatadan oo kale la qabaan ayaa maaragtay waxaa sal u ah duruufaha amni siyaasadeed iyo nabadgelyo ee dalka uu ku jiro si gaar ah cadaaladda waxaa dhiirigelinayo haddii qof maanta wariye ah xog uu gudbiyey darteed inta loo dilay aan qofkii dilay inta la soo qabtay aan loo maxkamadaynin maaragtay garsoor cadaalad ah uusan qofkii iyo ehelkiisii haddaysan helin weli xaaladii way sii jiraysaa waxay dhiirigelinay qof kasta oo kale oo u arka in maaragtay xogtan la gudbiyey ama la gudbin rabo inay dhibaato ku tahay haddii uu arko inuu asaga gacantiisii wixii uu doono uu ku sameeyo in qof wariye ah haddii loo arko waxa uu gudbinayo inay berri qof ama koox dhibi karto in loo qabto maaragtay xabadka loo dhigo maaragtay dhulka loo dhigo la ciqaabo la iska xabiso muddo marka la iska haystana la iska sii daayo iyada oo sababta loo qabtay iyo sababta loo sii daayana garsoor uusan cadaynin dhibaato weli jirta waa marka aniga aragtidayda waxaas oo dhan dhihi lahaa xilligan aan taaganahay haddii aan waxaan ka hadlayno nasiib darro waaye nasiib darrona haysata waaye guud ahaan ummadda Soomaaliyeed nafiso maxaad ku daraysaa ra'yigaas uu awaad soo jeediyay ra'yiga Ustaad Shariif iyo awaysba waa sidii hore Ustaad Shariif noogu sheegay marka waxa kaliya ku daraya waxay tahay maalin walba waxaa dhacda saxafiya la xiraa saxafiya la jirdila saxafiya maalin walba dhibaato loo geystaa marka waxa ugu weyn xorriyadda saxaafadda ee Soomaaliya qalqal kula jirta saxafiyiinta amaan ma haysta meel ay ku gambadaan ma jirto mar walba oo saxafigu uusan amaan haysanna waa mar walba oo dadka warka soo gaaraya ama wax walba oo dadka u qaban lahaa ama shaqo walba oo qaban lahaa ay mar walba hagar daacin ku jirto sababtoo ah saxafigu waxa laga yaabaa in la laaluusho laaluushkaas dartiisana runtii laga leexiyo oo saxafigii halkaa ku sameyn waayo wax saxan oo dadkii ay soo gaaraan oo ogaan waayo lagu go'aan gaaro waxaa laga yaabaa dambiye waaweyn oo ahayd saxaafadda inay daba gasho sababtay u dabageli la'yihiin inay tahay cabsida ay cabsanayaan daraadood waxaa iyadana laga yaabaa ooba dhacda in dawladdii markay hoos galaan xitaa aysan ku badbaadaynin saxaafaddii haddii dawladda aan lagu badbaadaynin marka oo dhinacyo kale bannaanka ay taagan yihiin oo lagu badbaadaynin oo dee war la sheego qofna wuu farxad geliyaa qofna wuu ka nixiyaaye labada dherigii labada dhinac ka gubanaya uu yahay wariyihii iyo guud ahaan saxaafadiiba dhibaatada ugu weyn ee haysataa waxay tahay mar
ammaan darradana waxay sababtay in guud ahaan waddanka aysan ka gudbin wax saxanba sababtoo sheeko walba oo aa u joogto oo dhacday oo aa ogtaasi ay u dhacday raadiyaha markaad daarto waxaa ka maqlaysaa sheekadii oo si kale u dhigan sababta keenaysa ninka ammaan ma haysto cid ilaalinaysa ma haysto waxaa laga yaabaa inuu lacag ku qaatay sababtoo ah marka xorriyadda saxaafadda laga hadlayo faqiirnimada xitaa waa ka qayb wariyaasheenu mushaar badan ma qaataan mar walboo saboolnimo jirtana waa qasab inay jirayso xorriyadda saxaafadda ay meesha ka maqnaanayso marka waxyaabo badan aa ishuwan markan xeer ilaalinta oo ah hay-adda ugu muhiimsan ee baarta dambiyada ka dhanka ah qof kasta oo muwaadin ah isla markaana doorkeeda ay ka mid tahay inay dowladda hay-adaha dowladda qaanuunka ku ilaaliso gudoomiye ku-xigeenka xeer ilaalinta axmed cabdulaahi dambiyadan soo noqnoqday saxaafadda ay ka cabanayso ay tahay xeer ilaalinta in ay doorkeeda aas-aasiga ka gudato maxaa hortaagan in suxufiyiinta dhibaatada gaarta oo ugu dambeeyey suxufi dowladda soomaaliya u shaqeynayay cabdicasiis africa in dadka dambiyadaasi galay aanan lagu qaadin dambiyada ay geysteen بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeyntii waan ku mahadcelinayaa Maxamed Cadde wariyaha Soomaaliya ugu cadaaga ah iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha haday ahaan lahaayeen aqoon-yahanada iyo madaxda kale sharafta leh ee banalka ay wada jirta iyo mas'uuliyiinta kale ka soo qayb gashay iyo dhammaan qof kasto nala jooga mansabkiisa ayaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh run ahaantii arrinta maanta aan u fadhino waa arrin aada u qiimo badan sababtoo waxaa looga hadlayaa wariyuhu wuxuu bulshada ugu jiraa ama uu ku leeyahay hadday ahaan lahayd dowladnimada iyo hadday ahaan lahayd bulshada dhexdeedaba wuxuu ku leeyahay boos aada u weyn waxaaba la dhahaaba adduunka dowladda markii loo qaybiyo 3 hay-adood 4 baa lagaga dhigaa maadaama iclaamka xooggiisa iyo saameynta uu leeyahay taas marka horta waa ahmiyadda meeshaan u fadhino waxaana laga maarmaanaya in la ilaaliyo wariyaha badqabkiisa sidaas awgeed waxaan is xasuusinaynaa in systemkeena ama nidaamka iyo qaanuunka dalka waxa ugu sarreeya uu yahay markii laga yimaado shareecada islaamka oo ah bayska iyo aasaaska dhammaan shuruucda dalka iyaduna ay tahay mabda'a iyo mabaadi'da guud ee islaamku waxa ugu sarreeya dalkeena dastuurka oo loo yaqaano dastuurka waxaa la dhahaa waa aabbaha qawaaniinta qodobka 18 buuna wuxuu ku leeyahay ku cadeynaya xorriyadda qofku inuu cabiro fikirkiisa xog inuu helo xog inuu gudbiyo taas iyadoo bees u tahay ayaa dalkeena waxaa la sameeyey xeerka warbaahinta dowladda hore madaxweyne xasan sheekh ayaa la soo saaray haddana dib ayaa loo fiiriyey mar labaad baa dib maxkamadda lagu sameeyey bishii 7 2020 ayaa loo soo saaray soddonkii bishii
soddonkii bishii toddobaad ayaa haddana lasoo saaray mar labaad sharciga warbaahinta 2020 oo uu saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo. taas marka waxay ku tusinaysaa mar walba horta nidaamkeed dowladnimadeenu inay ahmiyad siinayso saxaafadda. annaga oo ka xafiis ahaanna waxaanu qayb ka nahay guddiga la yidhaahdo guddiga badqabka saxufiyiinta oo aanu u matalayno wasaaradda cadaaladda iyo maxkamadaha maadaama uu yahay xafiiskii ugu sarreeyey ee dembi baarista iyo sidoo kale dacwo oogista oo qofkii faldembiyeed gala geynaya maxkamada hortooda awoodda u leh. su-aasha marka haddaan usoo dego wariyaal dhibaato loo geystay oo qeybtooda dhimatay allahu naxariisto way jirtaa oo dacwadahooda maxkamadu ay qaadeen. systemkeena hadda waxaa ka jira xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa kiisaska qeybtooda gala oo duruufo jira awgood u gala. dad badan ay maxkamad saareen oo wariyaal dhib u geystay iyo shacab Soomaaliyeed ba way jiraan. sidoo kale xeerarka guud ee qaranka wuxuu soo saaray isna wareegto ay soo saaray oo ku magacaabay xeerarka gaar ah ugu magacaabay arrimaha saxufiyiinta ku saabsan in dhibta loo geysto. waxaa markasta loo baahan yahay in wariyaasha laftigooda ay ku baraarugsanaadaan inay xaq u leeyihiin in ay dacwoodaan. waddankeena maanta garsoorka kor buu usoo kacay markhaanti baa loo yahay meesha uu marayo dacwadaha culus ay go-aan ka saarayaan waa lala socdaa waa la arkay. laakiin wariyaasha ayaga laftigooda waxaa laga rabaa inay dhinacooda ka soo galaan oo markii dhib loo geysto xaq ay u leeyihiin inay dacwoodaan. xeer ilaalintoodii kiis culus markuu dhaco kaleeto iyadu waa shaqadeeda waajibkeeda weeye. laakiin waxaa jira kiisaska qaybtood oo ay tahay qofka dhibanaha inuu dhaqaajiyo. kiisaska laba nooc baa loo qaybiyaa. kiisasna xeer ilaalinta ayaa dhaqaajinaysa oo qaranka dhibananka ah oo dadka guud baa dhibananka ah. haddii qof dhaawac loo geysto culus haddii qof la dilo. laakiin kiisas kaleeto waxaa jira iyana dhacaya dowladdu shaqay haysaa boolisku shaqo hayaa. waxaa laga yaabaa inay markasta ahmiyadda waddankeena waxaa la siinayo waa amniga. waxaa laga yaabaa iyadoo amniga darteed loo sameynayo in ama wariyaal la xiro ama danta gudyada laga fiirinayo. waxaa laga yaabaa marka qaybtood shaqadii socotay in xadgudub ka yimaado. marka haddii wariye lagu xadgudbo oo ama la xiro waa kala sarreeyaan jaranjarooyinku. haddii boolisku ay ula dhaqmaan si aan sax ahayn waxaa laga yaabaa qofka isagoo ama waaran loo haysan ama xilli habeennimo ah xilliye waxaa jira reeban oo qofka xataa haddii waaran loo haysto aan la soo qaban karin. waxyaabahaas oo dhan xafiiska xeerarka guud ee qaranka wuxuu leeyahay qayb dhan oo la yihahdo qaybta cabashada way u furan tahay. shirar horeetan waa ka sheegnay laakiin aad bay u yartahay wariyaal dacwadda soo gudbisanaya. marka dhinac baan waxaas leeyahay gaabisku dhankiinana waa ka jiraa. waa noo yimaadaan wariyaashu qaybo dacwada la qaaday waa jiraan laakiin dhankaas inay iyaguna kasoo ka xoojiyaan waa loo baahan yahay. marka maanta sharciga dalkeenna iyo nidaamka dalkeenna xeerkii waa haysanaa saxaafadda. wariyuhu waa og yahay waxa uu ku saxan yahay waxa uu ku qaldan yahay isagoo xeerkaa fiirinaya. ninbaa waxaa la yidhi hebel oo garta lagaama helo marka wuxuu yidhi geedka intaana tegin baan garnaqsadaa. marka wariyuhu haddii dhib lagu geysto soo garnaqso haddii aad aragto inaad gartaas leedahay cabashada soo furo. saasaan marka aan ku boorinayaa. waxaa reeban oo nidaamkeenna iyo sharcigeenna iyo dowladnimadeennaba ka reeban inuu baxsado qof
qof muwaadin dhib u geystay wariyuhuna maadaama uu duruufo ku shaqaynayo iyo xaalada ka duwan shaqadiisuna ay tahay shaqo culus wuxuu ka sii xaq jiraayo xataa wuxuu soo galay waxyaabaha dembiga cuslaya marka qaybta ay soo galaysaa haddii lagu xadgudbo reason shaqadiisa darteed lagu xadgudbo inay kiiskaas sii cuslaynayso marka saasaan qabaa ma mahadsan tahay garsoorka xafiiska reer cilaaliyaha si cad ayuu u sheegay qaanuunka iyo sida suxufiyiinta loola tacaamulayo booliiska oo ah gacanta qaanuunka booliiska qaanuunka maaha qaanuunku way hadleen oo ah gacanta qaanuunka maxay mar walba ugu xadgudbaan suxufiyiinta marka ay waajibaadkooda gudanayaan adigoo suxufi aan ahayn oo booliis ah markaan ka jawaab السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سنتين waxaan rabaa horta inaan macalinkaygii oo garab fadhiya macalin shirwac aan salaamo muddo 2000 iyo waxay ugu dambeysay 4 aan walaynaa ugu dambeysay ayad soccer jolline oo wada joognaa marka macalinkaygu waa salaama long time kadib inaan panel kula kulmo oo ku faraxsanahay waxaan rabaa inaan horta qaybino saxaafad markii la lahaa ama wariyaha waxaa ka horeeya horta in warka ka horeeya warka waxaa la yiraahdo diinta islaamka aan ka soo bilaawno waa diinta kaliya ogol xuriyatul qowlka markii la yiraahdo adduunyada diimaha kale la fiiriyo sababtoo ah sidina bilaal oo hore qof dhawaaqa oo lagu amray tahay inuu dhawaaqo marka laakiin qowlka dhawaaqa wuxuu u kala baxaa يعني سيئة يعني iyo xumaan isamaan u kala baxaa xumaantii ayaa si kala xaq jirsan oo u si kala baxaysa yani xumaan jirida jirta iyo xumaan falsafo ku timid yani qofna u fasirtay horta ugu tacsiyeena wariyaasha intaana warka galin wixii dhintay laakiin waxaan hadana rabaa in naftirkeeda meesha lagu soo daro inta meesha fadhiyo waxa arkay macalinka cashirku jeedinayay waa la dhibaateeyay waa la dilay waa lagu xadgudbay daawo lama siinin caafimaad la qabaan intaasaan arkay laakiin wali ma aan arkin meel la leeyahay yani points oo anaga xadgudubkaas aan sameeynay oo maqaalkaas qaldanan qornay wariyaa lagu xiray oo aan soo tuugnay xir ilaalintii booliiska intaan la geynin qoraalkaasna intaas lagu xadgudbay la leeyahay nin dhan oo la uumay oo bini aadan ah waa wada صالح ملا أقبل كرو إذا ما يشكو درتانا الربا نمبر كلوات mandate الدنيا أوجوجنا هاي سنة جرتا mandate كاسو وما خلقت الجن والإنس إلا اللي يعبدون حرمني هورت نمبر كو وحيد دين الإسلام ككور إيمانه حر كمني حران هاي أنت ترى هالكاس استاكتو دستور كان هذا إنه قا أمرنا كيورن وقبو dalka Soomaaliya gudihiisa waxa jira diin aan lagu faafikirin oo sharci ah dastuurkan uu qaba jirta diinta muslimka diin ahayn Soomaaliya lagu faafikir hadda waxaan ku arkay social media Facebook markaa gasho oday bidaar la soo booday kula diinta ciid masiixiga la gaaray Soomaalina ah yaa ogolaaday in la faafiyo yaa ogolaaday xayeysiintaas in page-ka ku xirato dastuurka ku ogolaanay qodob kamid dastuurka la jibiyay waxaan rabaa anaga is og waxaa la yiri geel jir gacmood ayaga hoos u dhaqda waynu is ognahay xuriyatul qowlka waxaan ku saleynaynaa shariicada islaamka ma ogol yahay wixii wanaagsan in la sheego la isgaarsiiyo anaga ogol anaga waa taabicina lahum bihsani ila yawmi diin waxay adigoo raali ah su'aashaan ku weydiiyay waa su'aal booliis ما يوا أصوّ وطا. أديكو حتى قعنت قانون كمتيد شيخ نمتيد. ما يا. وحروا. وحرسوق. هي. دودن ودود علمية واحد. هذه. قانون كي بحض لي ويشيغين إن عبشوين كفلان هيرين قانون كان ودفاع حقوق ذا. أوكي. صحيح. هذه. سؤال شاديك أنكو ويدي وحوي سؤال بوليس وي. قعنت قانون كأياتين. أي.
maxay tahay xadgudubkan joogtada ah ee ku dhacaya suxufiyiinta maadaama ay gacanta qaanuunka tihiin okay aan soo koobo inkastoo u baahnaa inaan faahfaahiyo xadgudubyada dhaca annaga booliisa nahay goob kastoo dembi ka dhaco waxay leedahay 3 option inay goobta ka imaadaan optionka koowaad oo ah dembiga in goobta ka dhacay booliis uu joogin la soo report gareeyay booliis uu tago waa option oo ah dembiga naftirkiisa inuu booliis abuuro tusaale ahaan daba kacay booliiska dabka inuu damiyo wuxuu abuuraa in guriga dabka loo maray la dudmiyo yani la abuuraa dabkaasi loo gaaro number 2 gooba qarax ka dhacay shil ka dhacay booliiska goobta markuu tagay wuxuu sameynaa xeelad qaraxan loogu dhawaan karo xeeladaas waxay sababi kartaa qof kale oo muwaadin inay dhibaateyso annagoo og intaas haddana waxaan ka taxadirnaa saxafiyiinta inuusan dhib soo gaarin waxaan u sameynaa xafiis la yiraahdo warbaahinta iyo wacyigelinta bulshada ani madax ka ah booliiska Soomaaliyeed horey hadduu soo jirin 2 sano dambe uu shaqeynayo xafiiska intuu shaqeynayo waxaan hadda ku soo kordhiyay wariyaashana kula kulmay agaasimayaasha warbaahinta kala kulmay in haddii any incident dhaco xitaa si uusan fal u dhicin transportation kana aan mas'uulka ah aan u sameynay contact point u sameynay aan isku iman aan goobta geynay waan ogahay boogta loo socdaa waxa way xabadka dhulkana noo dhigay meeshii aheedo kaxda waay waa dareensanahay waxa la iga qodaya taas 2 dhib waa dhacay maanta runta ka sheega waxa meesha ka dhacay waan ogol waa dadi jiray hadda waa qaawina subaxii CID ana isugu yeeray Daarusalaam ee kaxda la weeraray saxaafadda waxaan ku yiri all waxa isugu imaan saxaafadda group ay igu wada sameeyeen oo igu wada jiraan all media TV radio laakiin qof page la aniga ma duwana waxba laakiin saxaafadda inta la yaqaano oo bolosiga gaarka ah leh oo xarunta leh group ay igu jiraan waa cazumay CID ay igu yimaadeen tusaale kaasa wax walba naga kaafinayo presence hordhaca waxaan ku yiri meesha xalay saasa ka dhacday intaas dhimatay intaas laacantay goobtan hadda qatara ku suganta sababtoo 2 qaraxa ka dhacday qaraxan wuxuu leeyahay secondary device wax loo ama second device si goobta loo kirin gareeyo ciidanka min baarista ku jirto asraacayna halkan igu suganahay sida adduunyada laga yaqaan meel aduun guri soo galo waa xumaanaysa ta walaalkaaga ku dilaysa hunguriya soo galay waxa la yiri clipka ugu horeey ninka duubta fiyu badan oo helaa markii aan baski waay hogaanka gaadiidka waay process waa wax walba hogaanka gaadiidka waay basa u baahanay qaybta laga dagaalka argixisada waxa 2 gaari oo baski wariyaashaas aan saaray ilaalinayaan rabaa kaxda iyo Daarusalaam rabaa inaa geeyo mar alla markii la maqli jooga aan dhahay saxaafadii xaggee telefoon la istaageen amarka gaadiidka inta la sugo waxa adi bax hortag meesha hortag anoo CID dhex taagana la soo waxa la leeyahay wariyaala jooga ma adaa soo wada wariyaasheedu ay la joogan wariye ma ayaan ku rayn meesha kuwii way la joogan oo saxaafadu ay la joogta basaan sugoona naga leexda la yiraahdo anaga wariye amarka afayeenko idin la socodno ma kartaan waana sax goobtaas in la galo ani horta confirm in la dhaho goobta nabad waa gali kartaa ayagana anay ila mid yihiin nabad waayba lama sugin nin walba kaamirada oo la kala baxay taliska la iga yeeray gaarigii oo gaadiid soo socda CID taliskii aan tagay telefonka WhatsApp la igu soo diray leeyahay wariyaal la xiray CID hadii yani hadda waa la heli karaa baraha bulshada waa laga heli karaa hadii aan CID ku balamin ana gardaran CID diyan waxa ku wariye baxay ma jira may baski waa taagan yahay wariye la baxayna male waa joogan hada ku la xirmay yiin marka warbaahinta waa weydiiyay warbaahinta ay yihiin awees jilcow ninka dhibka ugu badan gaaray waa isku ardayana isku iskuulana isku xaafadana isku meelan ku soo kornay awees yaa lahaaya markii la yiri yani ani ka sokow saxaafada la dhibaateynaya dhiba iga soo gaaraya waa wacay waxaan ku yiri hala sii daay wariyaasha amar waa taqaana jaranjaro waay inta jaranjarada ay mareysay ala isqabsaday arintana waa galay saxaafada iyo anagana wax baana dhaxmaran shala u sukaysay dhibaatana dhaxmartay laakiin waxa rabaa way sifa sharciga nagu dhaxmaray wixii kama in waa ka garaawayna oo shaqo isu keento sababtoo kaxdina isugu imaan maxaa keenay labeen madow la soo weerar keentay hadii weerarkaas dhicleen ani saaf ma sarka leen
may wixii shaqo ay keento kama ee goobteeda waa lagu xalinaa qofka shacabka ah saxafiga iyo muwaadinka Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay inuu dacwoodo saldhig u dhow ka dacwoodo hadduu gaari waayo maxkamad inuu tago cabasho geeyo loo soo jeediyo saxafiyiinta awees iyo anaa waxaan ku yiri dacwooda waa gacana idinku siinaa CID taga xiraalinta taga ka dacwooda lama rabo anaga dib kalaan aragnaa human trafficking ku dhex jira saxaafadda human trafficking oo aan caddayn u keeni karnaa ku dhex jirta hay'ada isoo wacday waxay tiri saxafiyiinta la dhibaatay arrintooda raba inaa adigaa tahay Swedish aan nahay yaa wariyaal dhibaatayna BBC aan ka sheegay wariyaal dhibaatayna waa Soomaali askari dhibaatayna waa Soomaali maxkamad iyo xeer iyo dastuurna waa leenahay waa ku kala baxaynaa nin walbana waajibkiisa la marsiina adii Swedish taa maxaa ka galan ya maya waa dhiban yihiin haddaad wax u qaban karto abukaata lacagtiis ka bixiya u tag maxkamadda maxaa kaloo waxyar Allahu marka waxaan leenahay saxafiyiintu waa saaxiibka koowaad ee booliiska Soomaaliyeed waa kuwa aan saaka ayagan ku soo daay waxaan inta ugu soo daay waxaysiin way taas adigoo raali waxyar macallinkaaga aan wareegaya macallin afhayeenka booliiska iyo arday fara badan oo aad wax barteen ayaa meel kasta jooga dhibaatada saxaafadda soo noqnoqotay dhibka aragtay saxafiyiinta Soomaaliyeed gaaray maanta oo ah maalin la rabo in la soo afjaro dhibaatada joogtada ah ee saxafiyiinta ka dhanka ah maxaad ku tala bixin lahayd ardadaadii hore iyo saxafiyiinta iyo dadka ka shaqeeya hay'adaha dawladda ee laga tirsanayo dhibka iyo mujtamaca guud ahaan waxaan u malaynayaa Cabdishakuur aad ula jeeday isaga macallin oo dadka soo tababaray Cabdi Fataax maaragtay waa waxay ka ahayd muxuu ahay compliment bay ka ahayd laakiin haddaan hore u galo horta marka ugu horeyda soo abaabulidda iyo qabsashada maaragtay hawshan aan maanta u joogno waan ka mahadcelinayaa Fisoj iyo dadka ka soo qayb galay dhammaan iyo Maxamed Cadde oo maanta noo daadihinaya barnaamijka markaan intaas ka gudbo Soomaalidu waxay tiraahdaa waa yeel yaa waayo waa anagoon isyeelyeerin baa la yiraahdaa marka yani anaga wax naga hadlaysan yihiin marka inaanu meelaha ku warwareegno ma aha waa inaan toos u abaarnaa يعني الشرعي أنا لا حافظه عن مجال هذا مقدسة كدقنا قريها بوليس كقداشو ذا دقنا هاي ماشان اللي يرهدو بوش يوم هاي بيتزا هاوس يو كشة كنا وان دقنا لبعض ميلودون دقنا هنا دعوان كقبا لبعض أنا بوليسكم مقبتان ولي ميل يجا انتي دقين أو مدحضو دي قدامي أي دقتي bay xaafadii oo dhan xabsi galiyeen meelan guriga ka gala ma leh waa inaan ka soo wareego meesha ugu sharayda meel kastana dacwaankii cid qabataa ma jirto waa laga ogyahay labadaba maaragtay magaalada marka taasi horta waa mid guud ee jirta waay marka aan wariyaha u nimaadno wariyuhu Soomaalidu waxay tiraahdaa warba ugu gaajo kulul macnaha waxa weeyaan wax sida loo cuntada loogu baahan yahay baa warkana loogu baahan yahay marka ninkii warka doonayay muxuu ah mataqaanaa subaxii ku soo kalay bari waxa jiray magaaladu ay soo furreedo markii la doono la mari jiray meel kasta markaad aado qof wariyaha war doonaya ayaad arkaysaa ama kamera wata ama muxuu ah mataqaanaa qalab yar wax ku duubta wata muxuu ahaa mataqaanaa subaxii kala hayay arkayda marka horta mushkilad guud baa jirta waxaan rabaa inaan taas uga gudbo mushkilad guud midda guud waxa waaye warkii baa loo haystaa monoboliyad warkii la raadinayay ee dadka dhalinyarada raadinayeen ayaa waxa loo haystaa curaar baa loo haystaa curaar waxa loogu haystaa waxa weeyaan dadka mas'uuliyiinta ay badankood ma fahamsana warka in ay hayaan in ay la wadaagaan dadka
wariyaha inay la wadaagaan mujtamacana la wadaagaan maba aaminsanaba marka qofku marka uu mas'uulka uu diido inuu warkii sheego de wariyuhu wuxuu ku qasbanaanayaa inuu siyaabo kale u raadiyo cid walbaba inuu ka raadiyo ayuu aadayaa markaas marka taas uu aadana warkii uu soo helo uu sii daayana kii warka monoboliyada ku haystay ayaa ku qabsanaya qofkii monoboliyada ku haystay tusaale yar oo cadaan rabaa inaan idiin sheego aniga barnaamij baan goobjoog ku lahaa barnaamijka ujeedadiisu waxay ahayd in wariyaashuna ay wax ka bartaan mas'uuliyiintuna wax ka bartaan yacni barnaamijka waxaa la keeni jiray qof waxa laga hadlayo yaqaana ka jawaabi kara dhibaatada jirta saadaalin kara ama ku talin kara xalka ay u baahan tahay waxaan markaan barnaamijkaas sameynaynay madaxda goobjooga iyo annagu aan ka fikiraynay waxa waaye inuu noqdo qofkii mas-uulihiina meeluu xogta ku sii dayn karo muxuu ahaa mataqaanaa wariyuhuna uu ka heli karayo dhaqan muxuu ahaa cusub oo ah inaan qof walbaba wax la weydiin ee qofka wax og wax la weydiiyo siday u badan tahayna ay wariyaashu ay yeelaanna ay tahay barnaamijkii waxa u xirmay in qof dowladda ka socdo oo ka hadla la waayo qof dowladda ka socda oo ka hadla la waayo iska daa horta ciidamada ee dadkii caadiga ahay oo maaragtay ka shaqaynayay hay'adaha kala duwan ee dowladda ayaa laga waayay inay yimaadaan marka anigu waxaan qabaa waxa waaye dhibta ugu weyn ee jirta waxa waaye qofkii wax ogaa waxba ma sheegayo qofkii mas'uulka ahay waxba ma sheegayo taasi waa dhibaato ka daran baa jirta taas waxa waaye wariyuhu inuu xaq u leeyahay inuu war raadiyo lamaba ogaba warka maadaama uu aniga ii yahay monopoly oo aniga haysto maalan waxaan haystaa wixii la sheegaana waxaan anigu rabo maaha marka sidaas daraaddeed war ma aha ee waa xumayn loogu talagalay aniga ama qof kale loogu talagalay marka labadaa fahan inta ay jiraan oo marna aan warkii anigu ceshanayo marna warka aanan rabin uu yahay war gardarro ah oo aniga laygu maagayo micnaha waxa weeyaan cadaaladnimo ma imaanayso muxuu wariyuhu dhib la-aan ma shaqaynayo labadaas arrimood ayaa waxaan qabaa inay yihiin labada arrimood oo ugu waaweyn oo jira oo wariyaha halista gelinaya meeshay doonta ka timaado ilaa dadka mas-uuliyiinta ay aqbalaan in xogta ay hayaan waajib loogu leeyahay wariyuhuna waajibkaas adeega uu u yahay dhibtani way jiraysaa malaynaya marka sidee baa dhibtaasi looga muxuu arrintaasi dhibaatadaasi loo xaliyaa aniga waxay ila tahay xukuumadda hadda dhismayda iyo muxuu mataqaanaa dadka la shaqeynaya xeer ilaalinta iyo booliiska iyo maxkamaduhu waa inay horta yimaadaan in waxani ay waajib tahay anigu waxaan doonayaa markaan subaxii waagu ii baryo inaan ogaado wax magaalada ka jira wax waddanka ka jira ayaan u baahana waa baahi aniga i hayda xuquuq aan ku leeyahay weeyaan dadka mas-uuliyiinta marka haddii xuquuqdaasi la inkirayo warkiina monobolyo loogu haysto ninkan wariyaha dhib uu la kulmaya hadii jeer anigu sidaasaan qabaa marka madaxdu waa inay ogaadaan waxaan in xaq loogu leeyahay qof adeega ah oo waxaa doonayaana inuu u imaanayo oo ay markaa u sheegaan wixii dhici lahay wixii maaragtay dhacay cabdifataax uu sheego uu yiraahdo meelay dhibtaas ka dhacday wariyaashii maaragtay ku kalahayna saakay waan xirxirnay maaragtay arrinta kale oo meesha jirta waxa waaye yacni garsoorka iyagu fulinna ma laha oo anigu hadda dhibaatadan anigu ii sheegayay waxa weeyaan garsoorka waan u gudbiyey ma fulinna ma leh muxuu ahay dadkana maba loo shaqeeyaba 3 bilood waxaan raadinayaa taliye booliis ayaan raadinayaa oo waraaqdaydu ay taalo ma joogo intaan aniga shaqeeyo ama aan joogo maba la helayaba marka waxa weeyaan aniga waxay la tahay labadaas dhibaato ayaa jirta arrinta muxuu ahay qofkan dambiga galay kaliya ma ahan dhibaatadu way ka weyn tahay mas'uuliyiintu waajibkooda ha ka baxaano warka ha sii daayaan wariyahana yaan lagu ciqaabin dambi uusan lahayn
cabdishakuur sheekh fiqi maxaad ku daraysaa talana ku bixinaysaa بسم الله الرحمن الرحيم وان كم هاد علينا ميتين كان في عن إمانتا وريهن محمد عدي يا صاحب ذي ودود مهم أو أمد الصوماليات محاجر الدولة لماذا أن للسنة إنه أي كلمة أطهي وآد كدوغ مق نظامك مركا وأنا وذا السلام يا إيدون أكسن تكو حكتا ولا يسلقري أهمية ورك أوليه ورله لا تلا له لا الدنيا دو أردن ورك أي معلوماتكم بيكون للسيهين أما أكاديميك هذا أما كان للشيء يورياش أي سوورين يان هذا وأود ضدك بني آدم كون وهي سيد الله وذا الشيء خيارته أي وذا الشيئين أنا واحد بدن بانجا هالليسان شرعي بدن واقرني من لحدك إلى هذا واحد بدن نو قرن وفي عن لكن مشكلة دو حويه وحي ميا لو دغميا وي لو ما دغميو هل كان وحا كم مقن سيدا هاد آد لوغو علعليي dadkii looma bashaqay dawlad la'aan aan haysa dawlad waaweynay wariyo warkiisa ma banaqaanba laana oral society aan iska ahayno baadiyahaas warka baqiima nooguma fadhiyo sida adduunyadu u warka qiima iyo cilmi ugu fadhiyo anagu wax tixgelin weyn isagoo dhaqan ahaan u lahayn warka oo ah wax la iska sheekooyin la sheekaliye si cilmi ah in adduunyadu ay u wariso oo wariyaashu qiimahaas weyn ay u leeyihiin waliba ay تضحية نفتودي وقليان أيقون حولها هيسن قاركود وفريلانس واي سيدتكو information أصيان أو تلاقوا هلان دتك أي كشقيين لكن دل كان وحكجرة وحويه دل عن accountability لهم ويه إد إصلاح حساب تميس سسا للشقي دولتي أن نجحون النظام كذي ورياشو حق بي يقول لي هندتك إني آد لو احترام وحقوق ذو ذناس كامل لو سيو دولة إلى لسنا إني هلان هدي هدا دولة كلا إني إلى لان إنه قطوة مشكلة دوي شعب كني وحال ربا ورياشي سيو مهمة يقول لي إن يورك إنه يهي وي تنجر توحاوية وح accountability صغيرا وكبيرا دتكو كان مضح أنا لما حساب تمو ورياها لفتجيس وح وشيغو أما دليل وركو كانوا حدان قوان لقى قادنين لقى فائدة سنين هدي اللي قد باتي يوم دعوني هدي سنجرين وركو قيمة مالي وريون هالكاسكو قيمة بالي مركو حي أبا أنت هاي داد كان صوماليات يدول ديسو هذا بوليس كوارون أو وأنا أركيني أنك هي هذه كرسورك أدبا يا وحال الآن بدنا كجرتو كرسوركي إساقي ما مدح بنانا ولا شقين واي ولا آمين واي كرسوركا سيدي وريه حقيس أوهلا هدي ومدي صوماليات ودنا كرسوركا يا آمين لا ذاي هدي أي جانتار رجون أي تاي ماشي بوليسكي إساقي يلا قد دعوني هبيني مالين جدت بوليسكو حال ربا إن لو توبرو professional police oo xeer kan inuu dadkan isaga ku ilaaliyo dadka uu xifdiyo saaxiibka qofka bani aadamka jidka dhaafsiyo waxay dadka muwaadiniinta wax la qabto booliiska iyo qofku waa inay isku mid yihiin gurigiisi qoriyo intuu soo qaato asagoo qoriyo wata ayuu guriyaha canshuur asoo ka raadinayo wasaaradda maaliyadda dadka ijaaratada ah qoriyaha sanka ka geliya war waa maxay بوليس باتاي أديك وزارة مالية وقرية سوق هذا نيسو تلكي فوضوي جانتار رجوي accountability مجرته إد إسصاعي سمله وريو هالكاسو كل انتي حق بقولها حرية القول مد قدام بيس كلية واحد لقول حساب تميا إنه evidence وهاي وركيسو وصن ور كتير كتيرة وصن شيء كرين سيد رسالة أكاديمية reference loogu qoro warka waa inuu meel saaran yahay oo markii maxkamad la keeno wariyuhu dhihi karo daliilkeyga waa kaas laakiin waxbaan iska sheega sida dhalinyaro fara badan qaarkood ay sameeyeen laftigiis boolisku uu ku dhiban yahay oo kuwa wax iska sheega aan tababarnayn
kuwa ku cayaaray shaqadii wariyanimada kuwaan wax dhabaa soo warinayn dadka been ka sheega kuwaas waxaa laga rabaa daliil hadduusan jirin waa in garsoor madax bannaan oo dadka oo dhan u dhaxeeya oo garta u kala qaado waa inuu jiraa si uu wariyihii iyo warfaafintii ay u hesho madax bannaani kalsooni iyo cadaalad dadka oo dhan waa inaanay noqonin jaanta rogan anigu waxaan ku talinayaa nidaamka ayaa naga xun dowladnimada waad aragteen sida shirwac uu sheegay madax lala xisaabtamay waxba ma sheegaya ma kala yaqaanaan dalku informationkiisa kii sirta ah iyo kii la sheegi karo ma kala qorna waxaa la rabaa in la og yahay wararka la sheegayo publicada ah kan oo national security-ga oo sirta ana la og yahay hadda waxaad arkaysaa hay-adihii amniga ayaa waxay sheegayaan war sir ahaa oo security ahaa oo aan loo baahnayn in la faafiyo uma tababarna ma kala yaqaanaan kee sir oo hadda maalmahan aan la sheegin adduunyadu saas waa ka jirtaa si national security loo eego laakiin war waxaa jiro iska publica ah oo la rabo in la faafiyo oo la rabo dadka in la gaarsiiyo wariyaashu iyo warfaafintu ayada ayaa dadkii gaarsiinaysa ayadaa dadkii wacyigelinaysa iyadii dalka dhisaysa waa in loo madax banaaneeyaa waxyaabaha yaryarka ah national security waa gaar kaas sharci buu u baahan yahay iyo laftigiisa kala saarinta xagga sharciga oo ummaddu ay isku og tahay not necessarily inuu ninka madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha ama uu yiraahdo anaa madaxa ilay lama xisaabtami karo accountability kama jirto dalkan sidaas awgeed hay-adaha garsoorka waa in dowladda soo socota haddii wax laga qabanayo garsoorkii la dhisaa hay-adihiisa oo madax bannaan waa in shuruucdii la xoojiyaa wariyaha uu madax bannaanidiisa sharaftiisa lagu ilaalin lahaa waa in ay dowladdu difaacda ninka wariyaha ah warfaafintu waa inay dowladdu u hiilisaa weeye dadkaas oo aan lacagta haysan oo dhibaatada ku dhex jira maalin waliba aad baa loogu tacadiyey waxaan qiraynaa tacadi xoog leh inta naloo soo qoray aniga hadda waaba ila yar tahayba hitler baa waagii waxaa la yidhi dadku ableyn ku sameeyey oo kuwa yaa ugu sarreey adduunya markaasuu jarmaaniga ka dhigay ninbaa soomaali ah loo sheegayo carabta aad u dhibtay carabtu cunsuriyo fara badan kala kulma markaasuu yidhi war hitler number 1 hadduu isaga carab halkuu geeyey lambarkuu siiyey markaas waxaa la 16 buu siiyey walle waa u dadaaluu yidhi hadday 25 noo soo qoreen wayba noo dadaaleen aniga boqolaal baan maqabaa in lagu xadgudbay aadaa u baasantiin marka suxufiyiinta sida aad dooda ka maqlaysaan idinkuba eed ma leedin maxaad su-aalaad u qabtaan martidan sharafta leh ee noo jooga gabdhaha aan ku bilaabo bismillahi raxmaani raxiim magacay waa firdowsa maxamed su-aal waxaan ka mid ahay bahda warbaahinta waxaan salaamayaa dhammaan martida halkan ku sugan iyo sidoo kale wariyaasha soomaaliyeed ee maanta halkan goobjooga ka mas-uuliyiinta dhinaca ka socota booliiska iyo hay-adaha cadaaladda iyo sidoo kale macallimiinta iyo maamulayaasha ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee fisoj intaas kadib waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo afhayeenka ciidanka booliiska gaashaale cabdifataax su-aashaas oo ku saabsan hadal uu hadda halkan ka yiri oo ah in uu sameeyey ama uu agaasimo ka yahay xafiiska wacyigelinta warbaahinta waxaan rabay inaan weydiiyo wuxuu yidhi waxaan sameynay xafiiskaas sidaan ognahay markii laga hadlayo wacyigelinta iyo tababarada warbaahinta ururo warbaahineed oo badan oo difaacayaal iyo tababarayaal iyo kor u qaadayaal dhinaca warbaahinta ah ayaa u taagan shaqooyinkaas markaasoo lama rabin in booliiska ama askarta ku foogan shaqada wariyayaasha in iyaga laftirkooda xafiis wacyigelin oo tababaro iyo in wariyayaasha loo madax baneeyo shaqooyinkooda oo ay si nabada u gutaan ay doorkaas ka qaataan oo dhinacaas ay u leexiyaan xafiiskaas si uu shaqooyinkaas maadaama uu sarkaal uu yahay mas-uuliyiinta booliiska uu ka mid yahay ay tahay tababaradii iyo howlihii la siin lahaa ciidamada mar walba dhibaateeya wariyaasha wuxuu usoo wacday dhinacii howlihii loogu talagalay ururada warbaahinta marka soo shaqo ka baxsan moo haya shaqadii booliiska waa mahadsantii
waa mahadsantahay walaashay faham dara inay jirtaa umaleynaa xafiiska aan madaxda ka ah waxaa la yidhaahdaa xafiiska warbaahinta iyo wacyigelinta bulshada warbaahinta booliisku warkiisa baahiya wacyigelinta bulshadana waxaa hoos yimaada community policing team wax la degmooyin ka shaqeeya kooxda fanka ee booliiska kooxda isboortiga ee booliiska intaas hoos imaata waa waagii hore kacaanka waxaa la dhihi jiray hoggaanka siyaasadda laakiin hadda waxaa loo rogay xafiiska warbaahinta iyo wacyigelinta bulshada hadda aad muu fahantay yaa su-aal kala qaba بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحلا اسماعيل عمر مركو روح أنا أرسميه حادة دام وموضوع مهم هي صحافة دي معناتها دل كانوا هي دل بربرسن ما لها أول ناقصن وحلا قبل أبا غرفة جديدة مامولين أوكي ما دام أي تام لها وحلا قصة هاي لكن هذا حقيقة فاكتي وهذا شو يعني waxaan rabaa yiri inaan wax ka weydiiyo waxaan dhahay qof ma jira takhas ku leh Eurasia ama dalka kale Eurasia-ka ma jiro yiri marka waxay cadeynaysaa somehow inaga ruuxeena saxaafiyiintu inay noqotay meel income source lagu sameeyo oo lama jeedi saxaafiyiin wax yaqaan waa jira Soomaalida meel raago Omar oo kale marka Soomaalidu waxa moodaa markii wax la sheego dhinac kale laga sheego tusaalahan warbixintan daawaneynay markii research la sameynayo researchku bias malade moogta labada dhinacna waa laga sheegaa sidoo taliyo booliisku sheegay waxa moodaa nin baa islaantiisa aad u jeclaa waliya marka hilib bay qasheen waaga reer baadiyaha tolkiisana ciidiisana dad aad hilibku jecel been oo waxanaga hilibka dheheen markaas wuxuu hawarta la xadeeyada qalatay iyada ruuxda waxa moodaa saxaafadda iyo shariif wuxuu noo jeedinayay in wax saxaafadda waxa khaladka ay sameysay in la sheego dadku way muhiimad booliska midaan weydiinaya afayeenka booliska boolisku ma sha Allah uu fiican yahay waa dhibayn anagu marka xilliga hurudno oo inagu jiifno iyagu darbiyada joogaan oo si noo ilaashaan waa sax laakiin waxa moodaa ciidamka dadka raankiga leh in la qaato dad aqoon leh oo yani waxa ku jira dadka oo garaadada leh in Soomaaliku Allah fiican laakiin dadka aami bosnaa kala dhaho oo dadka ciidanka ah waa dad ama kayimi krishboy kayimi ama conductor kayimi ama qof aan xabaran qofka inta badan waxa ilaalinayna saraakiisha si la iska yaqaan Soomaali proof face ka saaran yihiin ama xafiiskii joogan way maxaa loo shaqaaleysiin way dhalinyarada wax yaqaan oo aqoon yahanka ودينيا ورياشة سوماليدا maxaa u diiday inay dad professional noqdaan su'aalahan geeska African joogna wariye lama ulim Soomaalida local ka markas wariye wax ku qoray in Suudaan Xasan Geegel roo saaxiibkiya ayaa maalin soo wixii Soomaaliya wax ka badan kama aqaan laakiin waxaan sheegay muus badan bay leedahay maxaa ku ogaatay wixii Soomaaliya oo jaamacadda Soomaaliya ka baxay baa jireed Suudaan ku taalan haar wax ku qoray way inaga ruuxina maxaa noo diiday wariyaal khubara in yeelano si caalamka iyo adduunka wax macluumaadka loo ogaado waana mahadsantihiin shukran وماسين walaalkay horta 30 sano dalkeena iyo ka badan waa burbursan yahay dhalinyaro yar oo dalkan u shaqeyso oo manhaj iyo curriculum sax ah oo dalku leeyahay wax ku bartayna ma jiro manhajyada dalkeena wax ku soo baranay jiilka ani ila daada ah iyo wixii iga sii yari waa manhajyo kala duwan
ciidanka waa galeen saxaafadda waa galeen maamulka dowladda waa galeen meel kastana waa galeen waxaan rabaa waa sax booliiska Soomaaliyeed xilli xunu soo maray xilli dalka uu qaribnaa soo maray xilli dalka dagaal kaliya loo taagnaa soo maray aan xafiis furnayn oo meel maamul furnayn waxa dhibka saxafiyiinta haya sida wariyaha uu hore ugu dhawaajay Cabdiaziz Afrika wixii dilay hal soo qabta kuwa Cabdiaziz Afrika dilay qaranka dhibana u ah Soomaaliya dhana dhibana u ah marka ma inkirayno in uu jiro akhris qoris la'aan ay jirto ma inkirayno siday bulshada Soomaaliyeed taayaan nahay anaga bulshada hadii jaahil leedahay booliisku leeyahay haday nin xun leedahay nin xun waa leenahay haday insan leedahay insan waa leenahay sharciga duruufaha dalkeena ku sugan yahay mas'uuliyiinta ka hadashay waxyaabo ii saamixin aniga ka hadla jirta wayna buug aan qoraa jirta la yiraahdo waxaan u shaqeeyaa dawladda waxaan ka shaqeeyaa dawladda waa idin soo bandhigi doona dhibka waana wada haystaa marka laakiin waxaan rabnaa sidee looga bixi karaa waa halka waxaan hadda uga hadleen shalay meel joognay maanta saxafiyiintii ciidanka waxaan xasuustaa 2017 kaamir wax la booliisku waa diidi jiray in la arko ani waagaas laanta la dagaalanka waxyaaba qarxan ka shaqeynay ana shakhsiyan waa ka dhaadhicin waay in waxaan in la record gareeya ay wax badan anfacayaan hadda loo baahday wixii hadda waxa wixii 47 sano la soo qabto miinaa aaw xilligaas waxaas hadii la keedin lahaa oo la duubi lahaa xog laga diyaarin lahaa hadda yaani cilmi baaristu fududaa lahayd laakiin baahida anaga qabno dhibana dhib geystay lana anaga dhiban victim operator anaga dhan marka insha Allah waa kabsanayna waana ku dadaalayna hadda waa la soocaa kii xun waa la qabana mustaqbalka dhow waxaan rajaynaynaa in laga baxo arrinkaas insha Allah walaalkay waa mahadsan yahay su'aashiisa waxa waaye su'aal in badan dadku is weydiiyaan anigoo saxafi aan is weydiinay laakiin jawaabteeda ay maaragtay banaanka iska taalo anaga waxaan ku noolnahay dal dawladnimadiisii ama qarankiisii la dhisaayo muddo 30 sano ka badan oo wixii ka horeeyayna maaragtay dalka awoodda uu gacanta ugu jiray maaragtay hal qof uu gacanta ugu jiray saxaafadda inta aadan fiirin si aad jawaabta saxda ah u heshid maalin kasta dada maaragtay la qaadaa oo dibadda loo qaadaa oo caafimaadkooda gudaha dalka waxba looga qaban waayay isbitaallo tiro badanna Soomaaliya way ku yaalaan oo caasimadda ku yaalaan maamul goboleedyada kale ku yaalaan sabab maxay ku dhacday waxay ku dhacday bulshadeena maadaama dalka uu burburay bulshadana way la burburtay dhaqan ahaan aqoon ahaan khibrad ahaan waxa soo dhan hadday soo wada kacayaan saxaafadda marka Soomaaliya ka mid tahay ee ayada kama madax banaana meel kale kuma taalo dadka ka shaqeynayana bulshadaas ay ka tirsan yihiin munaasabadan waxay ku saabsan tahay 3 May inaan bal ka hadalno intee heer ahaan aan hadda joognaa xorriyadda hadalka iyo tacbiirta iyo saxaafadda xagee ka joognaa maalintaas maadaama aan waxaas xuseyno waxaan ahmiyadda siinaynaa oo aan xoogga saaraynaa inaan ka hadalno meesha aan taagannahay haddii horumar uu jiro iyo haddii dib u dhac uu jiro labadaas wixii jirana sababtoodii aan isweydiinaynaa waa taas marka sababta aynaan u dhahaynin maxay saxaafadda takhasus fiican u yeelan weysay khaladaadka ayada ee gashay maxaa loo sheegi waayay munaasabada kale jira ayadana waa lagu sheegayaa inkastoo haddaba aan la qarin ustaad Sharwaca ka hadlay ustaad Cabdishakuur ka hadlay annagana waa wada ognaa saxaafadda marka dhibka ay qabto waxa waaye xorriyad buuxda inaysan wali haysan haddii xorriyadeedii lagu xadgudbana cid maaragtay ay u dacwooto iyo cid haddii marka ay u dacwooto ka bacdina wax u qabanayo ayaan jirin taasaan jirin xorriyadda oo qofka in uu hadla ah waa xaq asaasi ah marka la dhahayana waxa waaye waxay la mid tahay inaad neefsato cidna ma ka hor istaagi karto waa xaq asaasi ah oo Ilaahay uu ku siiyay oo meel kasta oo xeer iyo nidaam iyo sharci iyo dastuur lagu qorana ay ku qoran tahay oo maaragtay lagu damaanad qaaday inaad biyo cabto iyo inaad cunto intaas oo kale la mid tahay inaad xog heshid iyo inaad xog bixisid intaba marka taas darteed ayaa saxaafadda maanta munaasabadan aan xooga u saareynaa waa sax oo maaragtay waxaa jira dad badan oo aan waxaan xirfad u lahayn oo rabitaan iyo jacayl ay u qabaan darteed u soo galay
waxaa jira dad badan oo rabitaan iyo jacaylna uusan ka ahayn maaragtay waxaan aqoontoodiina aan ahayn laakiin isleh meelaha ugu fudud ee aad ka bariisayn kartid waaye yimid waaye haddii shalay qof aad isku galaas ahaydeen aad aragtay inuu maaragtay galaaskiinii ka dhacay kabacdina saxaafadda iska galay xaqiiqatan aniga waxaan arkay nin waalnaa oo waalida dhaqanta ahaa oo maaragtay isgoosyada baabuurta markii la raraayo wax ka rara lacag ka qaata maalinta dambe darees labisan oo qori wato oo jogboynta jooga anaa arkay waxaad ila aragteen dad badan oo siyaasiyiin aan ahayn oo shaqooyin kale iyo xirfado kale isaga jiray oo maalinta dambe la doortay oo xirfad noqday wasiir xamza oo kubadda cagta hadda asaga wuuba maaragtay sports wuuba ahaaye wasaaradihii asaga maaragtay wasaaraddaas wasiiradii ka horeeyay asaga sporti kama tirsaneen shaqana kuma lahayn waxaa laga yaabaa meesha inay ku barteen erey cilmiyeedyada isboortiga loo adeegsado caafimaadka sidoo kale waxaan kale marka wadanka aan ku noolnahay ayaa marxaladiisa sidaas tahay wax oo dhibaato iyo maaragtay ceeb gaar ah oo saxaafaddu ay u leedahay ma aha in ay ku jiraan dad aan wixii ahal u ahayn laakiin waa ka garaabeynaa insha allah waxaana rajaynaynaa sida wax ku socdaan inay isbedelaan maxaa yeelay kuliyado badan oo saxaafadda ah ayaa maanta dalka ka jira dadka milkiilayaasha oo marka hore ina adeerow iyo maaragtay dadka ku shaqaalaysiin jirana waxay dareemeen waxaan ahmiyadda ay leeyihiin dad oo ahal u ah in la soo geliyo taas darteed fahamkaas ay fahmeen iyo in la helay meel waxaan lagu barto oo lagu hormariyo waxaan rajaynaynaa inay yaraadaan oo la barbixiyo kuwa aan ahalku u ahayn oo bahasha ku ciyaaraya haddii ilaahay idmo nafiso gabdhaha saxaafadda ka shaqeeya ee aad u ololeyso maxay dhibaataa oo inta badan la kulmaan oo ay kuu sheegaan gabdhuhu waa kuwa ugu dhibka badan inay saxaafadda dhibaato kala kulmaan sababta aan saa u leeyahana waxay tahay saxaafadda keliya ma ahan inta ay ku jiraan laakiin ilaa xeerarkii wadanka oo la dejiyey oo saxaafadda sababtoo ah sharciga saxaafadda ee hadda qoran iyo kuwii horeba hal qodob oo gabdhaha si gaar u taageeraya kuma jiro hal qodob oo gabdhaha si gaar u taageeraya kuma jiro waxaa jiro gabdho badan oo shaqeeyo xarumo warbaahinood ka shaqeeyo ilaa iyo dhowr mar lagala hadlay xarumaha warbaahinta gabdhuhu qol gaar ay ku nastaan ma haystaan meel ay ku tukadaan oo gaar ay ugu tukadaan ma lahan musqulo gaar oo isticmaalaan ma lahan waa xaqa ugu hooseeya macnaha ay gabar heli lahayd ay ahayd inay hesho iyadoo taas aysan jirin wiilka way ka mushaar yarta waxaa laga yaabaa inay uga soo tagto meel dheer ay uga timaado $50 iyo $30 oo gabadhaas ay xarunta ka qaadato magalaas biyo ay ku cabtaa ma meeg abay ku soo gadataa magaalada dharka yaala dharka wiilka dharka gabadha qaalisan maalin walba dad ay hortagee ma basraac ay ka dhigataa maxay ku qabaneen cidna way ka soo tagatee reer dhanaa sugaya gabadhaas by the way jagooyinka iyo shaqooyinka waaweyn ee xarumaha warbaahinta yaala iyo saxaafadda dhexdeeda dhibka usii dheer waxay tahay waxaa qabta wiilasha madaxa barnaamijyadu waa wiil madaxa wararka waa wiil tifaftiruhu waa wiil agaasimuhu waa wiil milkiiluhu waa wiil iyadii jaga ay madaxa sare ugu qaadamaba haysato inay war doonto uunbaa laga shaqeeya marka gabdhuhu waa kuwa ugu dhibka badan by the way haddana wiilasha markii saxaafadda ama lagu handado ama wax soo gaaraan waa kuwo xogtooda degdeg loo helo la sheego gabdhihii iyagana ma la sameeyo oo xogahooda degdeg ma loo helo sababta gabadha way xishoonaysaa xarunta warbaahina ugu horeyso waxa ugu horeeya kasoo gaari kara waa harassment noocay ahaataba rabtaba ha ahaato taa markii kasoo gaarto gabadhii waxeedii way xishoonay sababtoo beri kabala lagu caaya markay banaanka u baxdo askariga booliiska gabadha waa caaya waa kala tuura wiilkii hadduu la dagaali lahaa iska celi lahaa xabsi geli lahaa waa la soo sheegi lahaa macnaha gabadhu lama dagaalin waa iska tagtay dhibkeedii ma sheegana ma qorna cidna ma oga way ka dhib badan yihiin marka doodan sidii aad ka maqlayseen afhayeenka umsom waxay qayb ka tahay dooda caalamiga ah ee dhibaatada suxufiyiinta looga hadlayo xorriyaddana lagu xoojinayo
waxaana mahadeeda iskale oo suurageliyey fisoj iyo ustaad faarax nuur waan bogaadinayaa kasoo qaybgalayaasha gaar ahaan xilaliyaale ku-xigeenka axmed cabdulaahi maxamed oo si faahfaahsan u sheegay in qaanuunkii muhiimka u ahaa uu yaallo suxufiyiintana ay tahay in ay cabashooyinkooda soo gudbiyaan sidoo kale waxaan bogaadinaynaa in ay booliiska Soomaaliyeed ka soo qayb galeen gaar ahaan suxufi gaashaanle cabdifataax aadan xasan oo ah afhayeenka ciidanka booliiska asna gudbiyey doorka ay booliiska ku leeyihiin howlaha saxaafadda wariyaasha awaas iyo nafiso dhibaatooyinka saxaafadda haysta ayay ka hadleen aqoon-yahanadana cabdulaahi maxamed shirwac iyo cabdishakuur sheekh xasan fiqina waxa ay ka hadleen dhibaatada guud ee waddankan ka jirta iyo inay tahay in dowladda xigta ay howlo ballaaran ka qabato dhinac walba oo ay ugu horeyso xorriyadda saxaafadda doodan marka aad fiirisaan sida kooban aad u hadasheen iyo culayska ay dad badan ka qaadayso iyo xuquuqda ay u cadaynayso dadka suxufiyiinta ah iyo xuquuqda aas-aasiga ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed u leeyihiin in ay war sax ah helaan aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina dooda sidaan oo kale ana mar walba waxaa la rabaa mujtamaca gudihiisa inay ka jiraan tan waxaa suurageliyey unsom aad iyo aad ayay u mahadsantihiin waxaan filayaa in wax laga faa'iidaystay wixii commentsana maartay waa soo diri doontaan oo qabtaan barnaamijkan waxaan ugu talagalnay inaan dhowr telefishin ka sii dayno haddii alla idmo insha allah iyo barteena maartay Facebook ay leedahayba haddii alla idmo marka waxaan wada geli doonaa sawir wada jiraan wada geli doonaa halku dhagyadana maartay waxaan rabnaa inay la wada haysto aadan waxaan u mahad celinaa ardayda saxaafadda barata jaamacadda ummadda Soomaaliyeed dadkii kale oo maartay wariyaashii kale oo ka soo qayb galay oo iyagana maartay isxilqaamay oo waqtigii maalintooda ciidda labaad iyo afayaankii aan ka bilaabay maartay oo asagana maartay asagoo saako dhan shaqo badan ku jiray haddana naga ogolaaday inuu maartay ka soo qayb galo odayaasha raggaas waa isla joognaa mar walba waana maartay iyaga laftigooda waqtigooda qiimo badan uu leeyahay awees oo shaqo badan ku jiray xeer ilaaliyaha oo shaqo badan ku jiray gabadhaan oo maartay aad maartay aan ugu mahad celinayo zaid waxa waaye iyadoo maartay muxuu ahaa ilmo nuujinaysa ay soo tagtay maanta ay ku tala gashay waqtigii yareed ee maqneed waxay ahayd inay baawarka loogu keenay ilmihii baawarku soo nuujisay waa soo noqotay ku soo noqotay aadan kaaga mahad celinaa nafiso waxaan kaloo mahad celinaa saadkeena maxamed cadde oo barnaamijkan maartay noo daadihinayay haddaa u baahataan doodo badan maartay jaamacadda waa u keeni doonaa iyo maartay saxaafadda sida loo saxay meelaha researchiga laga sameeyo jaamacadaha u badan oo dhibaatooyinka markay la qabo maartay lagu xalliyo marka waxaan rajayn doonaa inaan jaamacadda aniga laftigay macalinka ah bal inaan maartay waxyaabo badan oo hadda la soo jeeday afyaanka dhibaatada uu sheegayay iyo madaxdii kale ay sheegayeen iyo kulli la wada sheegay in jaamacadda lagu analyze lagu sameeyo sidii wax looga saxi lahaa document ka soo baxay documentigaasna uu noo noqdo marka waxaan kulligeen aan maartay aan gedi karno aan ku camal fali karno aad iyo aad u mahadsantihiin waqtiga dheeraa iyo hoteelkii meesha ku yaalo oo aad u dheer oo aad muxuu waqtiga soo siiseen waxaan rajaynayaa inaan halkan ku safan doono oo aan sawirkan ku gali doono